ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka gaashaanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed 54 jir ah ina Faadumo Cabdullaahi Maxamuud ku dhashay xamar oo ahaa taliyihii raxanta doomaha ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkii sida soo baxay 20kii bishii 2018 oo ay ku xukuntay gaashaanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha ka hor bixiyay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabkii sida oo ahaa bistoolad uu gacanta ku haystay xabad ka dhacday madaxa ugu dhacday akis marxuum jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino sidaasna uu ku dhintay marxuumka markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in rafcaanlaha xabad uu ka riday bastooladiisa ay madaxa ugu dhacday akis marxuum jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino markay dhageysatay doodii dhinacyada xal ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay rafcaanlaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in akis gaashaanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed in uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle akis gaashaanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed uu ahaa dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino wabillahi tawfiiq